بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. allah mahad iskale subxaana wa tacaala isku keen soo celiyey, mar labaad ilaahay wejigeena isukee keenay. allah mahad iskale awalan wa aakhiran. waxaad ogaataan allah siduu qur-aanka isku yidhi, waqul jaءa alxaq wazahaqa albaaطil ina albaطila kana zahuuqa. yacni xaqa ayaa xaq ah mar kastaba. dhulkan allah iska leh iyo waxa dul saaran. allah jala wacalaa ma noo abuurin ciyaar, wuxuu noo abuuray cibaadadiisa. haddaysan cibaadadiisa ahayn allah mana abuuri lahayn. marka allah inaan caabudno maslaxadeena ku jirtaa adduun iyo aakhiro. cibaadada ilaahayna ma aha keliya inaan salaad tukano oon soonno, ninkii awoodana zaka uu bixiyo una xajiyo. laakiin cibaadada dhabta waxa weeyaan allaha dhulka uu leeyahay in lagu camiro waxa asiga raali u ka yahay. allah subxaanahu wa tacaala rasuuluu noo soo diray محمد صلى الله عليه وسلم. allana uu ka yeelay sayid walad aadam. aadam intuu dhalay sayidkooda. waad ogtihiin inaan nahay khayra ummatin ukhrijat linnaas, ummatan ugu khayr badan dadka loo soo saaray. maxaan ku noqonay? alla wuxuu yidhi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar. macruufkaad faraysaan, munkarkana waad reebtaan. intaasaad ummadaha uga khayr badnaateen. wax kale ma ahan, keliya ma ahan ummadda nebi moxamedaatiin sala allahu calayh wasalam. in nebi moxamed sala allahu calayh wasalam la raaco ayaa khayriyada ay ku jirtaa, sida allah nebigiis moxamed sala allahu calayh wasalam uu ku yidhi, qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah. ku dheh haddaad alla jeceshihiin aniga isoo raaca. rasuulkeeni moxamed sala allahu calayh wasalam raaciddiisa ayaa waxay tahay khayriyadoo dhan iyo allah waxa uu nagu jeclaanayo. laakiin markaad nebi moxamed sala allahu calayh wasalam cagsigiisi aad noqoto waad khasaartay. weligaagaba sheego ummaddiisa inaad tahay. xasan albasri raximah اllah wuxuu yidhi laysa aliimaanu biاltamani wala biاltaxalli walakin ma waqara fi اlqalb wasadaqahu اlcamal. iimaanka ma ahan wax layska diilanaayo, wax layska sheeganaayo, sida qabiil oo kale, mu'minaan ahay mu'minaan ahay. sida soomaaliya haddaana aan ku faanno 100% muslim ayaan nahay. laakiin wuxuu leeyahay walaakin maa waqara fi lqalb. iimaanka waa wax qalbiga ku nagaanayo, qalbigu ka soo bilowdaa. wasadaqahu alcamal, waxaana u rumaynaya iimaanka qalbiga ku xasilay qofka camalkiisa, mujtamaca camalkooda. idan axibatii fi اllah, walaalahaygoon aad u jeclahay, ummaddayda dadkayga, allah subxaanaه wa tacaala rasuulkiisa moxamed sala allahu calayh wasalam
الله وحو نوشيغي إن رحمة عالم كودن أويهي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مكو صادر إلا نحريس أذيقو أهماهاني وعالم كودن نحريسا أتهي ومع ذلك maalmaha ugu horeeya nabigeena 100 qof 1000 qof ma laga dhigin oo ummad kasto محمد dhex jooga la yiri sallallahu alayhi wasallam laakiin ilaahay quraysh dhexdeedu ka soo saaray ayagana koo Allah uu yiri wa anzir ashirataka alaqrabin udig qaraabadaada kuwa kuugu dhow ood ka dhalatay ood istaqaanaan ku yaqaanaan adigana aad taqaanid rasuulkani Muhammad sallallahu alayhi wasallam quraysh way yaqaaneen in ka badan ciyaalkooda intay yaqaanaan wayna ugu jeclaayeen sallallahu alayhi wasallam dhalinyaradood waxay ku tilmaami jireen inuu aamin yahay inuu saadiq yahay runlow yahay aadi u jeclaayeen waan ognahay dhiigii quraysh daadan lahaa maalintii kacbada ay dhisaysay quraysh nabigeena sallallahu alayhi wasallam maalintaana da'diisa 30 sano meelaha lagu qiyaasay ayadoo quraysh odayaalkoodii madaxdii ay joogaan haddana rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam sigoon waliba alla dooranin loo soo dhiibin risaalada inuu dhiigooda badbaadiyey sallallahu alayhi wasallam ayadoo kacbada laysku haysto arinteeda oo qabiil kasta ay leedahay xajarul aswadka anagaa gelinaynaa booskiisa ilaa inuu dhiig daata maahane sidaan idhaahno ninkii raaya dhulka u hara ayadoo xaaladda saa ay marayso ayaa alla subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa xal uga dhigay ummaddaas baabi'i lahayd maalinta dhiiggoodii daadan lahaa asiguu ahaa gacmihiisa shariifka ah alla sharfay barakeeyey quraysh oo dhan go'a markuu yiri dhinac ka qabta xajarul aswadkana dhexda uu saaray markii kor loo soo qaado nabiga sallallahu alayhi wasallam asigaa booskiisa geliyey xajarul aswad ayagoo raali ku noqdeen quraysh oo dhan ay yidhahdeen radiina raali aan ku noqonay wamaca dalik allah risaalada markuu ku soo dejiyey oo uu u yiri qabiilkaaga u dig kuwa kugu dhow qaraabadaada rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu la soo jahray dacwadii ilaahay ummaddu uu ugu yeeray alla waxdaaniyadiis uu yiri qulu laa ilaaha ila allah tuflixu qurayshay dhaha ilaah xaq lagu caabudo ma jiro oon allah ahayn waad ogtihiin nabigeena arrintaa waxa ka raacay oo imtixaan diidmo dagaal waxaan la soo koobi karin oo culimmadeena ay noo sheegeen siirada dhexdeeda ay nooga hadleen ilaa heer rasuulka sallallahu alayhi wasallam magaalada madiina uu ka cararay oo maka uu ka cararay ugu dambeyn dilkiisa la qorsheeyey sallallahu alayhi wasallam quraysh dhalinyaradoodii ugu nasabsanayd in loo soo xulay abu jahlna madax u yahay adeerkiisana uu ku jiro cabdilcuza ibn cabdilmutalib waa abu lahab in nabiga sallallahu alayhi wasallam la yiri magaalada ka bax way jeclaayeen aadi aad laakiin maxay ku naceen ilaahay diinkiisi uu la yimid subxaanahu wa tacaala xaqa uu la yimid ayay ku naceen fii kulli zamaan allah inta uu u naxariistay maahee dadka xaqa ma jecla lianna allah qur'aankiis ku yiri ibliis dadka wuxuu ku rumeeyey maladiisa oo ahayd amaam rabbulciza jala wacala inuu ku dhaartay ma helaysid addoommadaada wax badan oo kugu shugriyaan midigaan uga imaana bidixan uga imaan doonaa hor gadaal dhinac kastaba waa dhumina balan uu qaaday inuu dhuminayo bani aadam ilaa ciddii ilaahay ka badbaadiyey ibliisna uu yidhi ilaa cibaadaka minhum ish almukhlisiin addoommadaada
saafiga kuu ah daacad kuu ah maahee cid kaloo iga fakanaysa ma lahan ayaa ibliis u caddeeyey. ilaaha naga dhiga addoommadiisa mukhlisiinta ah. axibatu lkiraam, fii kuli zamaan sidaas ayaa dacwat lxaq cadow loogu yahay. shayطaan iyo inta uu duufsaday aysan raali ka noqonaynin xaqan inuu muuqdo, laakiin allah jala wacalaa waa noo caddeeyey subxaanah in diintiisi ay kor noqon doonto, ay dhulka u hari doonto, walow haba la imtixaano, haba la dhibo allah jala wacalaa awliyadiisa ee allah diinkiisii xambaarsan iyo inta raacsanba haba la dhibo, laakiin ayagu xaqa u dambayn doonaa. sida qur'aanka tafsiirkiisa haddaad dhegaysataan aad in badan ku aragteen qisasta suuradaha makiga allah uu ku sheego loolanka culus dhex mara ambiyada ilaahay iyo inta raacday iyo dadka ka soo horjeedo, akhiiranna ayaga guusha ay raacdo walow suusan dad raacin, laakiin allah uu baabi'in jiray cid kastoo dacwadan ka hor timid, diintan ka hor timid, isku dayday inuusan dhulkan ku hergelin allah mabdi'iisi jala wacala. axibatu lkiraam, walaalahayga, idinkan waxaan idinkugu baaqi doonaa haddaad rabtaan cizi iyo sharaf fi اdunya wاlaakhira, allah jala wacalaa u hiiliya kitaabkiisa. hiilinta wax kale ma ahan awal inaad barataan, haaniya aad ku dhaqantaan, haaliثan aad fidisaan diinta ilaahay. ummaddayna way baaba'san tahay, gaar ahaan degmadan aan joogo dhinac kastaba markaatiaan iska nahay, lianna faan wax ma taraayo. wax walba waxaa loo baahan yahay buruuf iyo wax caddeen inaad u haysatid waxa aad tahay, aad ka run sheegtid waxa aad tahay. allah jala wacala kitaabkan aan rumaysannahay oo qof muslimna aan ogoleen in la duleeyo la xumeeyo kitaabkan, qashin haddaad ku aragtid, gobolkiis dhulka aad ku aragtid, aad qaadaysid, aad dhunkanaysid, cizigaaga asiguu ku jiraa, cizigaaga asiguu ku jiraa. marka walaalahayga, gaar ahaan dhalinyarada, guud ahaan dadka waaweyn, rag iyo dumar, diintan kaalmay idinkaga baahan tahay, asigoo allah uusanna idin baahnayn. sida kitaabkiisa uu ku yidhi munazalka jala sha'nuh, in tansuru llaha yansurkum wayuthabit aqdaamakum. allah haddaad u hiilisaan waa idin hiilinaya. yaa looga hiilinaa ilaahay? cadowgiisi shayطaan iyo inta acwaam u ah. hiilintana maahan keliya inaad dhib geysato, inaad wax khasto, laakiin hiilintii ilaahay waa in kitaabkiisi aad barataa. ogow intaad jaahil tahay inaad wax halaysid maahane wax ma hagaajinaysid. nabigeena salى اllahu alayh wasalam cilmiguu alla ugu yeeray, asigoon wax ogeyn lama soo dirin. faaclam anahu laa ilaaha ila اllah wاstagfir lidambika walilmu'miniina wاlmu'minaat. nabigeena allah baraa la yidhi jala wacala. ogow allah ilaah xaq lagu caabuday inuusan jirin allah maahe. walaalahayga, cilmiga wakti ma lahan. adigoo yare, adigoo da ah inaad baratid. nabigeena salى اllahu alayh wasalam markii la soo saaraayo quraysh ciyaal ma ahayn. abu bakar iyo nebiga yaa weyn waa lagu doodaa. wamaca dalik ummaddan ninka ugu cilmi badanuu noqday, waxyina kuma soo deganin. wakadalika cumar radia allahu canhu, wakadalika cuثmaan, caliyaa ugu yaraa. haddana ilaahay diintiisa garabay ay u noqdeen markay barteen ka bacdi. awal waxaan idinkugu yeeraa diinta ilaahay inaan cilmi u yeelano, horto taalib inaan noqono.
jaamacadaa la dhigtaa, madaarisaa la dhigtaa, wax walbaa la bartaa adduunyadan. wax fiican waaye in mutacalim aa noqotaan, inaad dad adduunyada la socda aa noqotaan xaalkeeda, laakiin waxaa ka weyn waxa aakhira ku raaci doono oo allana raalli kaaga noqon doono oo kitaabkiisa oo diinkiisa inaad baratid, markaasaad cizi yeelanaysaa. dhallinyaradayna maanta waa baaba'san yihiin, mukhadaraat, gaar ahaan degmadan waxyaabaha maanka doorinaayo waxaad moodaa inay noqotayba wax lagu faanay inuu noqday xataa dumarkii looga shakisan yahay gabdhaheena. sharaf dara ka weyn ma lahan wax alla xarimay in balwad ay kuu noqoto, faan uu kuu noqdo, noloshaada qeyb ka mida ay noqoto. quraysh anagayna la mid ahaayeen, bal way naga sii xumaayeen. cumar alkulisuu ahaan jiray radia allahu canhu, qamriga waxyaabaha ugu jecel yahay ay ka mid ahayd. qamrigu cabi jiray cumar qabla alislaam, sanamuu caabudaayey radia allahu canhu. asxaabta nabiga soo raacday sala allahu calayh wasalam ayuu dili jiray, garaaci jiray, ilaa heer cumar gabar uu maalin garaacayey. markuu usha ka joojiyey wuxuu yihi waa daalay, aan kaaga joojiyey, ma kaaga joojinin naxariis. suu u dilaayey, moxamed ka har, ka leexo dartii. haddana muxuu noqday radia allahu canhu midkuu ilaahay diintan ku cizeeyey. wax walba waa la dhaafi karaa haddii iimaan qalbigaaga ilaaha geliyo. cumar radia allahu canhu nebiga dilkiisu u fakfakanayey wax ka sii weyn inuu qamri cabaayey. nebiga dilkiisii ayuu ku howlanaa radia allahu canhu. maalintuu cumar islaamayey wuxuu u soo baxay nebiga dilkiis sala allahu calayh wasalam. ninaa ka hor yimid, uri cumar intee u socotaa? wuxuu yidhi moxamedaan rabaa inaan soo dilo sala allahu calayh wasalam. ninkii aad u arrintaa uga murugooday, muslim uu ahaa, laakiin cumar ma fahamsanayn. wuxuu u sheegay cumar, wuxuu marka hore ehelkaaga soo edbi. ma rabin in ehelkiisi uu u tilmaamo muslimiin ah, laakiin taasaa uga sahlanayd inuu nebiga wax gaarsiiyo. cumarna wuxuu ka mid ahaa quraysh raggoodii ugu khatarsan, asiga iyo xamza, khaalid, ragga waxay ahaayeen hormuud u ah quraysh. cumar wuxuu yidhi yaa waa ehelkayga, walaashaaduu yidhi faatima binti khataab iyo ninkeeda, ayaga ka bilow, maxamed tee ugu socotaa? markaasuu cumar qorshihiisa bedelay, guriga walaashiisuu aaday. markaa uu aadaya guriga walaashiisa waxaa la joogeen ayadii ninkeeda zayd, waxaa la joogay saxaabigii radia allahu canhu khabaab ibn alarat, inuu ahaa rajaynaya. cumar shanqartiisay maqleen oo xoog u soo socdo. khabaab meelaa guriga loogu qariyey, maqaar qur'aan ku qoranna waa u akrinayey, gurigu ugu akrinayey. cumar markuu soo galay wuxuu yidhi maxaa hugunkan aan idinka maqlaayey? caadi anagaa sheekaysanin mayuu yidhi, nin wax og waayo. markaasuu yidhi waxaan maqlay moxamed diinkiisa inaad raacdeen sala allahu calayh wasalam. wiilkii waa iscelin waaye, khiirada iyo cadaadiska ay ku jireen iyo iimaankiisa dardiisa. wuxuu yidhi cumarow, diinta aad wadato haddii laga xaqnimo badan yahayna. cumar kelimadaasuu sugaayey, wiilkii seedigiisuu ku booday. gabadha walaashiisana way ka fujin rabtay, cumar dharbaaxuu ku dhuftay oo dhiig kaga yimid wejigeeda. cumar markuu arkay radia allahu canhu walaashiisa dhaawaceeda, markaasuu xoogaa xishooday. uri itusii waxaad hayseen, waan maqlaayey. maqaarkii waxay tiri gabadhii, iimaankaa wax walba ka xoog badan. waxay tiri najis ayaa tahay, isoo daahiri, waan kuu dhiibe. cumar allah khayr la rabay, ma ka xanaaqin hadalkaas, waa soo qubaystay. quraysh way taqaanay sida laisaga daahiriyo janaabada.
lianna diina ibraahim wixii ka haray ayay haysteen inkastoo mushrikiin ay ahaayeen. cumar waa soo daahiriyey, waa soo noqday idhii buu yidhi. suuratu taahaa ku qornayd. cumar markuu aqriyey aaduu ula yaabay radia allahu canhu. cumar hore ma u ogeyn? maya. quraysh waxay isku dayi jirtay dadka qur'aanka inaysan maqlin, oo waxyaabaha hadda hadalkeeni ku socdo inaan cilmi yeelano, oo maanta dad badan ay isku dayayaan ummaddeena dhallinyaradeena inay indho la'aadaan, dhega la'aadaan, waxba ay maqlin, waxba ay ogaanin, oo bani aadama iska caabudaan. lanna jahliga wax walbuu kugu kalifaa. waxaad dulliga uga bixi kartaa inaad wax baratid adduunya aakhiro. quraysh sida alla noo sheegay markii qur'aan la akhrinayo waxay dhihi jireen walgow fiihi lacalakum taglibuun. ha lagu buuqo muxamed sala allahu alayh wasalam markuu qur'aanka akrinaayo si aan loo maqlin inaad ka xoog badisaana la arkaa. dhallinyaradeeda gaar ahaan inaad wax barataan maslaxadiina ku jirta adduunya aakhiro. yaan mustaqbal lahayn, yaan adduun dan ka lahayn, kulligeena mustaqbalaan leenahay. mustaqbalkaaga wuxuu ku xiran yahay aqoontaada gaar ahaan ta diinkaaga, oon shilin lagaa rabin, gogashaan laguu fidiyey, biyo meel kasta ay ku yaalaan, culimmadii shilin aadan siinin ku soo hor fadhiisanayaan habeen kasto. waxaa nasiib dara ah inaad adiga ka caajistid aydan wax baranin. cumar suuratu taaha markuu aqriyey luqadiisa lagu soo dejiyey qur'aanka, cumar aaduu ula yaabay radia allahu canhu. maxaa ka wanaag badan uu yidhi, shalay kii dadka aad ku dili jirtay waa tii daqiiqada ka hor aad u socotay rasuulka sala allahu alayh wasalam dilkiisa. marka jahliga dhibka uu leeyahay, jahliga dhibka uu leeyahay, jahliga insaan wuxuu ku kalifaa shaytaan inuu dhabarka ka fuulo walaalkiisa, uu la damco god inuu ku rido. jahliga adoon ka bixin ma helaysid adduunya aakhira liibaanteeda. axibatu lkiraam, cumar radia allahu canhu markaasuu yihi dulluunii calaa muxamed, war muxamed i tusiya. khabaab meeshii uu ku dhuunsanaa ka soo baxay, markaasuu yihi abshir yaa cumar, rasuulka allah sala allahu alayh wasalam shalay ayaan maqlaya soo ku ducaysanaya, ilaahayow labada cumar midkaad jeceshahay diintaada ku cizey. subxaan allah, diintan allah iskale, alla waa u gargaaraya diinkiis, laakiin asbaabaana laga rabaa anaga aan ku liibaano oon ku cizowno diintan inaan sharaf ku yeelano. maana alla diinkiisa tawar uma weynin, waa midka habeen kasta wax dila, maalin kasta wax dila, abaarkeena awooddiisa jala wacala. inuu diintiis u heliyo maxaa ka hortaagan ilaahay? anagaa mas-uulna looga dhigay. subxaana, ina adunyaa xilwatun khadira wa ina allaha mustaklifukum fiih fayanduru kayfa tacmaluun fattaquu dunya wattaquu nisaa. adduunyadan fidno waaye, adduunyadan waa fidno alla ugu talagalay in addoommadiisa ku kala saaro, aan noqono kuwa ilaahay cizeeya. cumar khabaab wuxuu yidhi waxaan maqlay shalay rasuulka sala allahu calayh wasalam oo dhahaayo ilaahayow diintan ku cizay labada cumar midkood. lianna maalintaa diinta ilaahay asoo rasuulka sala allahu calayh wasalam joogo ciriiriyay ku jirtay. ma awoodin saxaabada nabiga sala allahu calayh wasalam kacbada inay ku tukadaan, ma awoodin. rasuulkeeni waa loo fakfakanaya sigoo saa loo jecel yahay, alla ilaalinaayo. wax badanaa dhibkiisii laisku dayey, waa la ceejiyey sala allahu calayh wasalam, ilaa indhihiisa ay sigeen inay soo baxaan. inta nin gadaal uga yimid uu ku ceejiyey go-iisii nabiga sala allahu calayh wasalam. wakadalika qorayshna castoodii inay nabigeena madaxa ciid uga shubaan sala allahu calayh wasalam, uus inay duusha ka saaraan geelka uuskiisa nabiga sala allahu alayh wasalam, dhabarka inay ka saaraan asoo sujuudsan.
jahli dartii wax walbuu ku kalifaa qofka jaahilka ka ah diinkan ilaah inuu la dagaalamo wahuwa laa yadri asoon isdhehaynin allah la dagaalamaysaa mise oga. laakiin waxaad ogaataan dhalinyaro, ilaahay diintiisa wuxuu ugu talagalay aniga inaan cizi u yeelno, anaga inaan ku sharafowno, anaga inaan ku liibaanno, lianna ilaahay diintiisa waa u hilinaya. ina allaha naasirun calaa fi diinihi, ilaahay midkii u hilinaa waa diinkiisa iyo rasuulkiisaba subxaanahu wa tacaala. allah wuxuu yihi, cumar wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa baryadii nabiga salى اllahu alayh wasalam adiga inay ku qabatay cumarow. labada cumar yaa waay, waa abu jahal iyo cumar ibn اlkhataab, waa labada nin quraysh ugu cajaa'ibsanayd, looga cabsan jiray. ilaahay cumaruu la doonay jala wacala, cizigaas cumarow alla la doonay subxaanah. cumar markuu islaamay daarul arqam ayuu tegey, gurigii lagu dhuuman jiray oo qur'aanka laisku bari jiray, diinta laisku bari jiray, saxaabada dhalinyaradooda ay buuxeen oo qofkii lasoo tashkiiliyaba la keeni jiray. maanta anagana arrintaasaan u baahannahay in dhalinyaradeenni wax ay fahmaan, ay soo qabtaan walaalahooda xeebta fadhiya, godadka ku jira, mukhaadaraadka isticmaalayaan, ummaddan cizigeedii aan ka fakaraynin, in si tartiib madax ayagoo loo salaaxayo ilaahay beedkiisa la keeno, la tusiyo khaladkooda iyo shaytaan inuu la tegay. markuu ogaadu ooyn doonaa inuu intaa muddadaa dheer ilaahay xadgudubuu ku samayn jiray, allaha saa noo qurxiyey, allaha sharaf noo yeelay, allaha garaad iyo caqlina siiyey, oo haddana aan ku caasinayno. ninka dhalinyarada markuu fahmo, markaasaa sibir ay u noqonayaan wax walboo macaasi ah. hadday naag noqon lahayd xaraam ah, hadduu balwad noqon lahayd, iyo hadday xumaan noqon lahaydba, qofka markuu wax ogaado, walaalkiisa si tartiib wax ugu sheego, markaasuu ogaanaa inuu khalad ku jiray. fa kam saxaabada nebiga ay ooynaayeen, ciil iyo muruga ay la ooynaayeen. muddo dheer miyaan la dagaalamayni? allah saa noo abuuray, rasuulkan uu noo soo diray aan la dagaalamaynay ayay la ooyn jireen ridwaan ullahi calayhim. kuweenina way la ooyn doonaan haddaan wax fahamsiino, si deganaan waxaan u fahamsiino, aanan takoorin, aanan xumaan u tusinin, si tartiib khaladkoodii aan u tusino. sheekh ayaa maalin wacdinayey wiil gaari saaran ragga mukhadaraadka ilaahay ku balaayey, ku balod uga dhigay ayaa soo maray. sheekhi asigoo wacdinayo weliba ilaahay aayaddiisii aqrinayo subxaanahu wa tacaala, walaa taxsabana allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. wiilkii gaarigii u waday muraayaduu hoos u dhigay waa muqadarist, 27 jir waay. ilaahay waa u nimceeyey adduun, carabtaan uu ka mid yahay, laakiin balwadaana lagu ibtileeyey. aayaddaa markuu maqlay waa ka soo degay, muxaadaradii lagu haayay dacwatu shaaric ayuu ka qeyb galay, waa fariistay. markay muxaadaradii dhammaatay, sheekhu u tegay, wuxuu iclaansaday towbadiisa. allahu akbar, inuu toobad keenay ayuu sheekhu hortiisa ku muujiyey. bil ramadaan bilowgeediina way ahayd. wixii ka dambeeyey wuxuu ku soo biiray dhalinyaradii wanaagsanayd safkooda, inuu ilaahay diinkiisa baranayo, culummada meel kastoy kheyrka sheegayaan inuu aadaayo, ilaa laga soo gaaray
ramadaan 7-labaatankiisi habeenkii fadliga badnaa taraawiix markuu soo tukaday hooyadiisii dhibka ku qabtay oo maanta faraxsan ayaa wuxuu yidhi hooyo tahajudka ii kici hadhowdi waa seexday waktigii markii la gaaray hooyada midig iyo bidixay u gedisay naf maba ku jirtaba wiilkii laa ilaaha ila allah subxaan allah axibatu lkiraam alla ciziyuu idinla rabaa alla ma raba inuu idin duleeyo lallahu afrax bitawbati cabdihi allah ku farxad badan addoonkiisa towbadiisa ayuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam ilaaha kugu farxa adigaan oo waxa aad ka samaysan tahay aada og tahay waxa calooshaada ku jira aada og tahay oo maalintii intaa jeer inaad qubaysatid aada u baahan tahay allah wuxuu jecel yahay toobadaada waxna ma u qaban kartid ina allaha huwa الrazaaq du lquwati matiin ya ayuha الnaas antum اlfuqaraءu ilى اllah wallahu huwa اlganiy اlxamiid in yasha yudhibkum wayaأti bkhalqi jadيid wma dalika calى اllahi bcaziiz alla waa idinka deeqtoon yahay ma idin baahna dadow idinkaa u baahan hadduu doono waa idin tirtiraya ilaahay wuxuu la imaanayaa khalqi cusub casiis kuma ahan ilaahay arrintaa kuma cusla laakiin markuu idin kaadinayo idinkoo xun idinkoo ilaahay caynaayo idinkoo dhahayo ilaahay wiil uu dhalay maantaan ku jirnaa feestadoodii gaalada christmasaa soo dhow ay xaflad u dhiganayaan wiilkii ilaahayaa dhashay subxaana allah laga yaabo qaarkeena jaahiliinta inay u dabaaldegaan christmas ay yidhaahdaan ood u dabaaldegtid raalli ku noqotid allah wax dhalay laa ilaaha ila allah axibatu lkiraam wiilkaa khaatimo suubanu ku dhintay maxaa keenay diintan ilaahay la faafinayaa keentay culimmada haddaysan caajizin hadday juhdi iyo dadaal bixiyaan ummaddan miskiin waayo shayطaan ayaa gacanta ku dhigay u tusiyey xumida wanaag wanaaggana xumaan u tusay daliil ku ah cumar radi allahu canhu daka rajul oo nabiga salى اllahu alayh wasalam dilkiisa u socday markuu gurigii yimid lagu dhuumanaya ya rasuul allah albaabka markuu cumar yimid duleelkaa laga fiiriya cumaraa joogaa waa naxeen saxaabadii gudaha ku jireen le nin shar lagu ogaa ayuu ahaa seeftiisana waa watay wuxuu u socdo ma oga dadkii ayagoo dadkii muransan xamzana hortiisuu islaamay wuxuu maxaa idin daaray ee cumara albaabka taagan haddii cumar uu yahay ka furir albaabka hadduu khayr wado waa soo dhowaynaynaa hadduu shar wadana seeftiisaan ku dilaynaa allahu akbar cizigaasuu alla idinka rabaa jala wacala rasuulkaa loo sheegay gudaha ku jira sal allahu alayh wasalam wuu soo baxay ha laga fur uu yihi waa laga furi cumar waa soo gale soo seeftiisii xambaarsan markaasuu nabiga seeftii maca alcumar maca alkuleetka isula qabtay wuri yaa cumar weli ma reebtoomin miya nabiga sal allahu alayh wasalam geybka wax kama oga cumar wuxuu u socdo ma oga alla keliyaa geybka og xataa rasuulka allah sal allahu alayh wasalam wuxuu alla u sheegay maahe wax kale ma ogaan karo markaasuu uri cumaro weli ma reebtoomin miya markaasuu uri ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anaka rasuulu اllah allahu akbartii isqabatay kacbadaa laga maqlay qorayshtii fadhisay ayaa allahu akbartii gurigaa laga yidhi kacbadaa laga maqlay isla markii cumar wuxuu yihi ya rasuul allah anaga miyaynan xaq ku taagnayn ha ayaga miyaysan baatil ku taagnayn qoraysh ha maxaan u dhuumanaynaa ya rasuul allah nabix rasuulka ilaahayow qoraysh waa tusinaynaa waxaysan jecleen maalintaasa ugu horeysay saxaabada ayagoo laba saf ah safna cumar uu hogaaminayo safna uu hogaaminayo asad ullah xamza ibna cabdilmuطalib ridwaan اllahi calayhim
cizidaasu alla idinka rabaa. ummaddan muslim waaye, wax sheegiday u baahan tahay ayadoon dhib loo geysanin, ayadoon la carqaladaynin, ayadoon la mushaakilaynin, waxay u baahan tahay in wax loo sheego. dhagax ma ka samaysna. allah wuxuu yidhi jala wacala, low anzalnaa hada alqur'aana calى jabal lara'aytahu khashican mutasadican min khashyati اllah watilka alamhaalu nadribuha linnaas lacalahum yatafakkaruun. qur'aankan haddii lagu soo dejin lahaa buur jamal, waad arki lahayd ayuha almukhaatib khaashican, buurtii oo khushuucsan, mutasadican, dildilaacmayso min khashyati اllah. war qalbigeeni dhagax miyuu ka adag yahay? la, laakiin in wax loo sheegaa ka maqan, in wax loo sheego ayaa ka maqan. qofkii alla khayr la rabo waa soo hanuunaya, qofkuu alla khayr la rabinna allah og meeshuu geysanayo. dhalinyaro, way idin baahan tahay diintan. quruxda diintan aad tihiin, ummadda ubaxeedaad tihiin. allah jala wacalaa diintiisa cidna uma baahna, laakiin anagaa u baahan. habeen kasta haddaad saa u soo camirtaan majaalis addiin idinkoo isjecel, xumaan qalbigiina allah uu ka saaro, berita allah uu idin naadiyo yowma laa dila ilaa diluh. allah uu yihahdo ayna almutaxaabuuna fiya, ayna almutajaalisuuna fiya, ayna almutazaawiruuna fiya. alyowma udiluhum fi dili, fi taxta dili yowma laa dila ilaa dili. aawi kuwa darteedii u fariistay, aawi kuwa darteeda isku jeclaa, aawi kuwa darteeda isu soo booqan jiray. maanta harkayga hoostiisaan u harina, maalin aan har jirin ilaa harkayga maahe. subxaan allah. maanta haddii meel maxfal laisugu yimaado oo meesha madaxda fadhisa lagugu yeero leerta ah, adigoo dhan waxaa is leedahay, waxaad dareemaysaa wax aan caadi ahayn. maalin aadam calayhi الsalaam iyo kan ugu dambeeyay ilaaha abuuray meel isugu imaan doonaan, ka waran carshi الraxmaan haddii lagu hoos fariisiyo. waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati اllah, wiil da'yar oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray ayaa ka mid ah dadka loo harin doono, sida rasuulkeeni uu noo sheegay salى اllahu عalayh wasalam, sabcat yudiluhum اllah fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh. 7 allah wuxuu u harinayaa harkiisa hoostiis, maalin aan har jirin ilaa allah harkiisi maahe. waxaa ka mid ah wir nabigeena, shaabun nasha'a fii cibaadati اllah, wiil da'yar dhalinyaro ah, gabarna way ku jirtaa, ku barbaaray diinka ilaahay. walaalahayga oon aadka u jeclahay, cizadiinan jeclahay, sharaftiinan jeclahay fi dunya walaakhira, dulligiina waa necbahay. qof kastoo diin idin sheegayana saasuu uga danqadaa, uu habeenkii murug ku jiiftaa. ummaddaydi maxay xaqa u qaadan la'dahay? ummaddaydi maxay rabbigeeda u caabudi la'dahay? ummaddaydi maxay diinteeda ugu hiilin la'dahay? axibatu lkiraam, wax barta dhalinyaro, wax barta. waalidka u dibicsanaada, ummaddiina u dibicsanaada. haladin arko allah baraka idin gelina, qofkii idin arkana allah sabab uga dhigaa hanuunkiis adigoon dhib samaynin. u kaalaya beydka ilaahay, u kaalaya ilaahay marti u noqda. allah waa idin jecel yahay, sidaanuu idin abuuray, quruxdaanuu idin siiyey. hooye wax kaa ma oga, ayadoo naaskeeda aad haysid, dhinaceeda aad jiiftid, wax kama qaban karto xaalkaaga. haddii neef kugu xiranto wax ma kaa qaban karto. yaa waay midka ku badbaadiyey? allah. yaa waay midka caloosheeda dhexdeeda muddadaa dheer kugu korinayey? yaa waay midka nabadgelya kaaga soo saaray kafkaas yar ciriiriga ah? allah. markaad lixaadkaaga aragtay, awooddaada aragtay, allahaas ma ku caasinay jala wacala? miyaysan ceeb ahayn? fa ayna tadhabuun?
alla wuxuu leeyahay intee u socotaan insaano nabigeena sal allahu alayh wasalam taasuu ka dhaadhiciyey saxaabadiisa habeen iyo maalin way oon jireen wixii horay amaana loo qabtaa ma allahaasaan xumaantaan ku samaynaynay gefkaan ku samaynaynay ku xadgudbaynay muddo dheer aan la dagaalamaynay way oon jireen saxaabada nabiga ridwaan ullahi calayhim ilaahayna cizi iyo sharafu ugu bedelay subxaanahu wa tacaala walaalahayga mukhadaraadkan dhibaatuu leeyahay gaar ahaan aad iyo aaduu u dhibay ummadda aaduu u dhibay waalidka aaduu u dhibay mujtamaca alla jala wacalaa nabigiis wuxuu leeyahay kula muskarin xaraam wax walboo maanka doorinaya xaraam mooyaan wiilan xasuustaa oon hilmaami karin weligayga guuleed la dhahayay maalmahan dacwo shaaric ka akrinayay jumcadii barxadan ama ziinada moorsho wallaahi ummaddiio saas u safan muxaadaradiio socoto dhexdana qof buusan ku jirin ayuu soo maray dhexduu istaagay sigaaruu watay waa kala jibiyey laa ilaaha ila allah safkeenuu ku soo biiray wuxuu noqday qof wanaagsan ummadda in wax loo sheega keliya ka maqan ummadda in wax loo sheego keliya ayaa ka maqan dhalinyaro ukaaliya culimmadiina wax ka faa'iidaysta alla sharafuu idinla rabaa subxaanahu wa tacaala ilaahay ciziyuu idinla rabaa alla kitaabkiisa munazalka wuxuu ku yihi subxaanahu wa tacaala laqad anzalnaa ilaykum kitaaba fiihi dikrukum afalaa tacqiluun walle alla wuxuu idin soo dejiyey kitaab sharaftiina ku jirto maalintaa qurayshaa lala hadlaya qurayshay kitaabuu alla idin soo dejiyey rasuulkan wanaagsanuu idinku soo dhiibay kitaabkaasoo dhexdiisa sharaftiina ku jirto afalaa tacqiluun war caqli ma lihidin miya ilaahay wax buu garansiiyey quraysh ridwaan ullahi calayhim intuu alla khayr la doonay maanta diintan aan harsanayno sabab u noqdeen inayna soo gaarsiiyaan ma awoodid walaashaadii walaalkaagii hooyadaada inaad gaarsiisid adiga inaad ku hanuuntid adiga inaad noqoto beedka ilaahay mid alla u khuduucsan markuu salaad tukanayo og aaminsan mawlihiisa inuu hortaagan yahay nin madax xun ah oon waxba kuu qaban karin markaad soo hor istaagtid waa gariire adigoo dhan waxna ma kuu qaban karo caafimaad ma ku siin karo waxaad u baahan tahay ma ku siin karo allah markaad soo hor istaagto salaad tukanaysidna culayska iyo caajiska ku hayo wax la qiyaasi kara ma aha rasuulkaagana waa ooynayay sala allahu calayh wasalam markuu salaada ku jiro waxaa laga sheegayey xabadkiisan waxaan ka maqli jirnay aziizun ka aziiz almirjal sida dheri karaya oo kalen xabadkiisa ka maqlaynay rasuulka sala allahu calayh wasalam markuu salaad tukanayo wakadalika saxaabatuhu ridwaan ullahi calayhim axibatu lkiraam maxaa kaa qurux badan maxaa kaa sharaf badan rabbigaaga macrifa haddaad u yeelato haybadiisa qalbigaaga ka buuxsanto iyo weynidiis indhahaaga jaceyl aad u qabtid ilma ay uga soo daataan aad dareento markaad allahu akbar tiraahdo boqorkii ku abuurtay inaad hor taagan tahay maxaa ka cizi badan maxaa ka sharaf badan laakiin dareenkaas ma nagu jiraa markaan salaad tukanayno mar le maana laga dhameeyo laakiin caawo dhan saaxiibkaa waa la taagnaan kartaa filin waa fiirsan kartaa shaqadaada waa joogi kartaa 24 saac in lagaa xiro ma rabtid laakiin allaha ku abuuray caqligaas cizigaas sharaftaas awooddaas ku siiyey 5 daqiiqa ma awoodid si raaxo badan inaad u hor istaagto waa naxariis aan lagula doonin waayo haddiiba heerka aad maraysid waa dhimanaynaa wallahi waa dhimanaynaa yowm min alayaam allahaasaan hor istaagi doonnaa maxaan ugu jawaabaynaa jala wacalaa markuu na weydiiyey cimrigeena iyo cilmigeena iyo hantideena wax aan ku samaynay asigana na siistay annagoo caasinaynuna arsaaqa habeenkii waad seexataa hurda raaxo badan waa soo toostaa adigoo xibnahaaga dhaqdhaqaaqayaan ooliya laguma shubo gaas laguma shubo electric ma kugu shidna waxaad arkay waxaad maqlay waxaad dhadhaminay
haddana asigaa kula dagaalamaysaa. ma rabtid inuu caabud ku yidhi aad caabudo, noqo aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbih. subxaana allah, aman huwa qaanitun allah dhahayo qof asigaba adeecid badan ilaahay aad u adeeca, ammaantiis mala soo koobi karo. aman huwa qaanitun aanaa alleyl, habeenka saacadiis alla adeecayo, alla u taagan. dhalinyaro waayo, shahwad la-aan ma hayso, awood la-aan ma hayso, laakiin rabulciza qalbigiisa ka buuxsamay jaceylka uu qabo ay wax walba usoo duuduubay, toobaduu la yimid, macaasi kastuu ka soo tanasulay, wari ilaahayow inaan ku raaligeliyo go-aan ku gaaray. aman huwa qaanitun aanaa alleyl saajidan waqaa'iman, maruu sujuudsan yahay ilmaynaayo, maruu taagan yahay. saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira, aakhiro taxadir ka qabaa, cabsi ka qabaa, geerida kadii ku imaataa. wayarjuu raxmata rabbih, rabbigiisa naxariistiisuu rajaynayaa. qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab. allah dhahaya ma siman yihiin ku wax yaqaan iyo ko aan wax aqoonin. cid kale ma ahe alla waxaa xusa oo dareema awooddiisa iyo jacaylkiisa iyo haybadiisa alculamaa, kuwa wax garanaya, kuwa wax fahmayaan, kuwa wax garanayaana alla garanaya jala wacala. walaalahayga, allah ha idin hanuuniyo, hana idin cizeeyo, cadowgiina allah idinka qabto, gaar ahaan ummadayda guud ahaan soomaaliya o dhan. ilaahay diinkiisa anagaa u baahan, iyadana ma baahna. wallaahi macaana dareemi lahayd habeenkii markaad mobayl iyo balaayo aad ku jirtid, cagsigiisa haddii lagu siin lahaa qur-aan aad akrinaysid ama salaad aad tukanaysid, raaxaad heli lahayd oo adduunyada madaxdeeda weysan. isku day rabbigaaga inaad raaligeliso intaad soo halaysay. isku day rabbi jala wacalaa inaad u toobad keento. isku day sidoo askari hortaada taagan dembi aad ka gashtaa uga qarqaraysid, maantale i cafi aad leedahay, si ka weyn allah inaad habeenkii markaad seexanaysid sariirta aad fadhiisato, ilaahay hortiisa saa ugu khushuucdo ugu oysid. ilaahayow gaf weynaan kaa galay, ilaahayow awoodaan adigaa i siiyey, ilaahay murqahan adigaa i siiyey, ilaahayow shahwadan adigaa igu abuuray, allow quruxdan adigaa i siiyey, waa kugu caasinaye. allahayow haddaan wax gartay, haddaan gartay xaqaaga iyo xuquuqdaada, ilaahayow ilaahow ma ii cafinay, ilaahayow ma ii cafinaysaa, waan kuu soo noqday. wad og tihiin muscab bin cumayr markuu nebiga bartay, gabdhaha quraysha isku dagaalami jiray, hooyadiisa aaday u jecleed. markuu nebiga saxaabadiisa dhalinyarada asxaabtiisa ay soo tashkiiliyeen, nebiga loo keenay, xaqiiqada la tusay, wuxuu dareemay wax macaan badan uusan ka helaynin quraysh iyo hooyadiisa agteeda. muscab waa islaamay, hooyadiisaa maqashay, waxay tiri xaraaman kalanaha anigii adiga, ma harsanaayo, wax ma cunaayo ilaa muxamed aad ku kufrisid. hooy wuxuu yihi warkaas iska dhaaf, maxamed ma ku kufrinaayo. haddaad 100 naf leedahay oo marba ujeeda mid inay kaa baxayso, wallahi diinteeda ma ka baxayo, hooyo cun ama iska dhaaf. allahu akbar. marka ilaahay nuurkiisii iimaanka qalbigeena ha geliyo. waalidkeenana intay soo xadgudbeen oy nala dagaalameen ilaaha ka cafiyo. inta haddana weli jahliga ku sugan allah soo hanuuniyo. inta hanuunsana ilaahay ha u ziyaadiyo. walaalahayga, jahliga ka baxa, khuraafaadka ka baxa. war alla iyo rasuulkiisaan idinkugu yeeraynaa. ma doodaad ka qabtaan, mucaarad miyaad ku tihiin alla iyo rasuulkiis? la ma ku dhahay qabiilkayga, ma ku dhahay abkayga, ma ku dhahay hayeyadayda. allaan ku leeyahay rasuulkiisa muxamed sala allahu calayhi wasalam, iyo kitaabkan alla noo keenay, nebigana dhaxal noo siiyey sala allahu calayh wasalam, cilmigaan aanu ka dhaxalnay aan u kaalmayno, aan barano, aan isku cizayno.
waa liibaanayna wallahi. anagoo gacan qaadin, dad caynin, dad dilin, dad dhibaataynin, wallahi alla cizina siinaya, wallahi alla ciziyuuna siinaya. laakiin diintan haddaan faraha ka qaadno sidaana u duleysnaanayna iyo si ka daran. allah subxaanaه wa tacaala cizi ninkii rabo falilaahi اlcizaةu walirasuulihi walilmuؤminiin. man kana yuriidu اlciza falilaahi اlcizaةu jamiica. qofkii sharaf iyo cizi rabo wallahi diinta allay ku jirtaa. istikfaar la imow, salaad la imow, salaax la imow, wallahi faqrigaa ka baxay, wallahi faqrigaa ka baxaysaa. wallahi meel aadan ogeyno alla kaa arsaaqa, cidaan ogeyna wallahi ku taakulaynaysaa. wallahi waxaan aragnay waay. laakiin haddaad u moodo awooddaadii caqligaagii cilmiga adduunka inaad wax ku keeni karto, wallahi dulli ma ka baxaysid, dulli ma ka baxaysid. marka ayuha alaxibat alkiraam, ilaahay isu keen dembi dhaafo. wallahi waa idin jeclahay, waa idin jeclay. alla markaatiuu ka yahay, alla cizidiina inuu kor uu ka yeelo ayaan jeclahay, weligeygana aan jeclaa. alla waxaan ka baryaa marka subxaanaه wa tacaala adduunkiina aakhiradiina inuu idin hagaajiyo. axibatu اlkiraam, go-aan gaara, niyadaada go-aan ka gaar. alla inaad isku dhiibto, ilaahay diintiisa inaad khaadim u noqoto. beri markaad dhimato in aad sharaf lagugu hoyo qabrigaas ciriiriga mugdiga ah, laakiin adigan aad ku faraxsantahay, ad leedahay qadimuunii qadimuunii, war iwada iwada, maxaad ii daahinaysaan? inaad gaartod beri ku dadaal. bismi اllah, alxamdu lilah, wاthanaau lilah, wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah. allahuma inaka cafuun tuxib اlcafwa faacfu canii. allahuma aciz اlislaama wاlmuslimiin waadil الshirka wاlmushrikiin acdaءaka acdaء الdiin. allahuma man araadana waummatii khayra فأعنه يا أرحم الراحمين، ومن أرادنا وأمتي شرا اللهم اجعل تدبيره في تدميره. لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.